bal 4 sano Somaliland jirtay Somaliland West tigirada waa run qaal aan ka dhignay dadka iman karayana waa dabaqada sare hadalad hore u tiri oo ahaa Somaliland kumay iman rabitaan shacab hadda wali tiimiyada aaminsan tahay mise waxba iska ka bedelay ticket VIP oo aan ku gadi doono almost waa la wada gatay $900 per ticket iyo ka labaad oo ah gold oo lagu gadan doono $150 taxiisaha leh waxa weeyaan durba waxa dhamaaday $150 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحانو سكريسة هوتيل كزارو فرانو ugu kulanay suxufiga caanka ah Cabdirsaaq Teera marka laga tago wada shaqayntii dheereed ee nagu soo martay telefishinkii Home Cable TV sigara aniga waa walaalkay aad baan aragtidaada ugu faraxsanay bal horta soo dhawow nimco waa runteed waxaanu ku soo wada bilownay telefishinka Home Cable xilligii uu ka guuray magaca Hargeysa Cable TV anoo jamhuuriyadda ku soo noqday iyo nimco ku soo noqotay warbaahintii aad baan ugu faraxsanahay wala wadhawahay Cabdirsaaq documentary ballaaran baad ku soo bandhigaysaa magaaladan Hargeysa bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo filimkaasi muxuu xambaarsan yahay muxuu kaga duwan yahay documentariyadii hore ee aynu arki jirnay la soo bandhigi jiray runaha waa su'aal fiican documentary-ga walaal waqtiga galay waa horta observational documentary maxay tahay wuxuu kaga duwan yahay Soomaalidu intii ay duntay jamhuuriyadda halka mar labada wadan ku wada midoobeen waxa aad u yaraatay ama aqoonta dadku u leeyahay Hargeysa ma taqaano Ceergaabe Berbera ma taqaano Berberi Boorama ma taqaano soo wuxuu koobsanayaa Somaliland idilkeed laga soo bilaabo Laas Qoray ilaa Looyacado wuxuu soo bandhigi doonaa dhulkan wuxuu waqtiyadii Asian Times wax la oran jiray dhulkii ilaahyada badan wuxuu soo bandhigi doonaa duri qadiima oo dadku waxay yaqaanaan la scale oo kale waxa ku jirta godad ka badan 1800 mitir oo soconaya ay ku wada yaalaan calaamadaha la scale oo kale ku yaala wuxuu soo bandhigayaa kaymo 100 kilomitir wuxuu soo bandhigi doonaa hadii baha awood leh idmo taariikhaha wuxuu soo bandhigi doonaa bal 4 sano Somaliland jirtay Somaliland West marka documentary aad u balaaran maadaama filimka magacaadu bixiseen anbaba aad u xusheen uu yahay unrecognized maxaad u malaynaysaa inuu door intee leeg ka qaadan karaa aqoonsi raadinta Somaliland runaha waa su'aal fiican waxaan qabaa inuu door weyn ka qaadan karo sidoo kale unrecognized waxa ku sii hoos jira without recognition hadda intaaba gaadheen hadii la aqoonsan lahaana intee bay gaadhi lahaayeen arintaasi markaynu halka kaga tagno social media bariyahan aad bad u gilgishay markii documentary-gaagu inuu soo socdo dadku arkeen waxa la isla dhex wareegayay hadalad hore u tiri oo ahaa Somaliland kumay iman rabitaan shacab hadda wali tiimiyada aaminsan tahay mise waxba iska ka bedelay shaki kuma jiro rabitaan dadweyne ku timi rabitaan dadweyne ku taagan tahay waa kuwa kelmadaan igi daba socda marka taas waa rabitaan dadweyne waan gartay Hargeysa ku soo bandhigaysaa meelo kale oo idin qorsheysan lagu soo bandhigaa miyuu jiraan soo magaalada Hargeysa ku koobay nimco wajiga koowaad waxaan ugu talagalay maadaama ay caasimadda Somaliland tahay Hargeysa inuu gaalanaydka koowaad ka dhaco Berberi iyo Boorama ku xigi doona dan khaliijka sidoo kale jigjiga ayaa ka horeyn doonta waxaan geyn doonaa Nairobi Kenya sidoo kale Europe tahay inta xilliga qabowga lagu jiro Europe wada marin doona targetkayga waxa weeyaan ilaa iyo 3 magaalo dunida inaan ku soo bandhigno Cabdirsaaq oo arinta xiisaha leh rabeen inaan ku weydiiyo waxay tahay filmo badan baa lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa dadku way galaan wax lacag la isma weydiiyo filimkan aad soo bandhigaysaan lacag waxa la sheegay aad u badan in lagu galayo maxay tahay sababtaas nimco waa laba ujeedaan kale nahay in maxay tahay kacaan wax soo saar oo dunida filimada ah oo tayadiisu sareyso dhulkan Soomaalida ama Soomaaliya dhulkaygan Soomaalida oo dhan baan ka jirin aan ku soo kordhino talabaad in qiimaha art-ka la ogaado tigirada waa run qaal aan ka dhignay dadka iman karayana waa dabaqada sare dabaqadaha kale waxaan ugu talagalay way daawan doonaan
laba qaybood baan u kala qaadnay waa maxay tahay ticket VIP oo aan ku gadi doono almost waaba la wada gatay $950 per ticket iyo ka labaad oo ah gold oo lagu gadan doono $150 taxiisaha le waxa weeyaan durba waxa dhamaaday kii $250 kii kala wali yaalo marka labada ujeedan kaleena haatanna waxa ila taagan directorka filimka Xuseen Boon soo dhawo Xuseen bal waxaan rabaa inaan ku weydiiyo sidee baad ku bilowdeen duubitaanka documentary-gan meelaha ugu saameynta badan ambaba muuqaalada ugu saameynta badanna goboladee baad ka soo duubteen aad baad u mahadsantahay Nimco waan dhawahay documentary-gan unrecognized kolley meelo wadanka meel ka maqanbo horta ma jirto magaalo walba iska dhaxarki doontaa tuulo walba waxaan focus ka saarnay in yacnihii la arko Somaliland inta qarsoon ayna dadku inta badan ka ogaarag maadaama ayna dadka reer Somaliland badanka isku traveling oo ina maxay qaybtaasi naga maqan tahay magaalo walba wixii ay aasaar leedahay cultural kooga waxay caan ku yihiin documentary-gu waa documentary film oo intaan meel tagno report maanu soo gudbinayn laakiinse maxay entertainment oo ku jira magaalo walba ayaanu focus ka saarnay xagga security-ga xagga aasaarta de muuqaalo very cinematic oo high quality na ka soo qabanay bulshada waxyaabaha kale ay ka fikiraysay amba isweydiinaysay waxaa ka mid ahayd filimkani miyuu siyaasad khuseeya horta unrecognized waxa weeyaan scriptiga markii aanu samaynay dee wax dowladoo faraha soo gelisay may jirin scriptigu badanka waxay ka timid Cabdirasaaq Teera aniguna I was privileged inaan direct gareeyo aan sheekada iskugu dabarido wax dee siyaasad khuseysaba maaha waa mid aan ugu talagalnay in international iyo nationalba ay ka bogan karto waxayna hadda ka hor ayna arag ay ka dhaxarki karaan ayaan focus ka saarnay siyaasaduna way kala qaybisaa dadko waanu ka leexanay oo Allahu musta'an uu ka bad qabaa oo dee wax alla wax maxay siyaasadu kaga jirtaa ma jirto